maamulka gobolka Banaadir oo kulan ka yeeshay xaqiijinta amniga toddobaadka xorriyadda ee Soomaaliya xildhibaan cusub oo maanta lagu dhaariyay aqalka baarlamaanka ee maamulka Jubbaland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee Muqdisho banaanbaxyada ka dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo murashaxiintu u tartamay xilka madaxweynaha dalka u ballan qaaday inuu cadaalad ku maamuli doono wasiirka wasaaradda haweenka iyo waliba xuquuqul insaanka ee Soomaaliya oo sheegtay in golaha wasiirada ay horgeyn doonaan sharciga caruurta soo gudbinta wararka idaacadda asal waxa idin sahashay shirkadda isgaarsiinta soodkeedu macaan Soomaali wada sidato Somtel the new vision 4G plus Somtel markale habeen wanaagsan waa 8 shabaal 1442 hijriga miilaadigan ay ku aastaysan tahay 12 bisha 6 2021 waxaana warka idin soo jeedinaya anigoo ah Aadan Xuseen Daawud u diyaar garoow wararkaasi oo dhameystiran aan ku bilaabnay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa u ballan qaaday dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka hoggaanka ugu sareeya dalka inuu si cadaalad ay ku dheehan tahay uu maamuli doono Ibraahim Maxamed Qaasim ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa meesha ka saaray in uu damac ugu jiro xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu shaaciyay in uusan isoo sharxi doonin doorashada la filayo in ay dhawaan ka dhacdo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad ka dhacaysay degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa ku adkaystay ballanqaadna ku sameeyay xukuumadda ee ku aadan hogaaminta geedi socodka doorashada daafurnaanta degdega ah laguna kalsoonaan karo waxa uu ballan qaaday inuu u sinaan doono dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya dadka Muqdisho waa halbowlihii dalka iyaga ayaa mas'uuliyadda ugu badan ee dalka ay ku soo dhacaysaa maadaama aan joogno dhammaanteen magaalada madaxdii dalka waana waajib in la saaran in doorashadaas aan u wada guntanno oo aan daadihino aniga ka ra'iisul wasaare ahaanna xaqiiqdii maanta hortiina ka ballan qaadaya waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh inaan u fuliyo doorashadaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibka iga horreeya ex ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo musharax ah iyo madaxweyne farmaajo haday tartamayaan waa ay sinaanayaan wax dan ah oo gaar ah kama lihi doorashadan cid gooni ah oo aan leeyahay hebel adan ku wataa oo aan ku xaglinayaa ma jirto cadaaladaas inaan falaa iga rabaa aduu ilaahay raali ka noqdo walaalahay musharaxiinta iyaga waxaan leeyahay markasta aan dhihi jiray igu kalsoonaada aniga ayaa idin jooga dambiishaas wixii hore xun oo sambal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhawaan la wareegay hogaaminta doorashada dalka wuxuuna kadib qaatay talaabooyin dhowr ah oo muujinaya in uu dhexdhexaad ka yahay arrimaha doorashooyinka ee ka jira dalka inkastoo weli ay jiraan walaac laga qabo villa Soomaaliya in ay farangelin ku hayso arrimaha doorashooyinka ka jira Soomaaliya Ibraahim Maxamed Qaasim Radio TV-ga Asal Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddiga soo baaraya cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee sheegay in aysan war iyo wacaal ka helin caruurtoodii oo ay sheegeen in tababar lagu qaaday dalka Eritrea warqadda ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu magacaabay 5 xubnood isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in ay soo hubiyaan cabashada waalidiintaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiinta Soomaaliyeed oo sheegay in aysan war iyo wacaal ka helin caruurtoodii oo ay sheegeen in tababar lagu qaaday dalka Eritrea guddiga ra'iisul wasaare uu magacaabay oo ka kooban 5 xubnood ayaa kala ah guddiga ra'iisul wasaare Rooble uu magacaabay ayaa ka kooban 5 xubnood oo kala ah 1 Xasan Xuseen Xaaji wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudoomiye looga dhigay guddiga 2 Muqtaar Xuseen Afrax wasiirka arrimaha gudaha oo xubin ah 3 Tanjare Cabdullaahi Axmed Jaamac الكثير سفير كصوماليا إثيوبيا أو حبين
4 Jarnaal Odawaa Yuusuf Raage taliyaha ciidamada xoogga dalka oo xubin ah 5 Maxamed Ibraahim Macalimow oo afhayeenka xukuumadda ah oo isagana xubin ka ah guddigan ayaa laga dhursugaya inay ka soo jawaab celiyaan cabashooyinka ay waalidiinta Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay ay qalabka warbaahinta u marinayeen madaxda dalka Soomaaliya. xildhibaan cusub ayaa maanta lagu hordaariyay mudanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo sidoo kale baarlamaanka Jubbaland ay kulanka ku yeesheen Kismaayo maanta ay kaga hadleen arrimo dhowr oo ku aadan wada shaqeynta qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdimajiib Cabaas aadan ayaa warbixintan Kismaayo inooga soo diray. baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay markaa kaga hadleen ajandayaal dhowr oo ugu horeysay sidii xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland wada shaqeyn dhab ah loo yeelan lahaa iyo sidoo kale in gudiyada baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland la faray in ay la xisaabtamaan xukuumadda cusub iyo sidii ay shaqooyinkooda u sii dardargelin lahaayeen. kulanka baarlamaanka oo ay soo xaadireen ku dhawaad 49 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaariyay xildhibaan cusub oo bedeli doona xildhibaan Maxamed Afey Maxamuud oo dhawaan ku geeriyooday dagaal ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ciidamo uu hogaaminayay Cabdirashiid Janan wasiirkii hore ee amniga Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. xildhibaanka cusub ee la dhaariyay ayaa waxa lagu magacaabaa Deeq waxaana markaa dhaariyay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona halkaasi uu dardaaran ugu jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo uu baarlamaanka xubinta cusub ee ku soo biirtay uu kula dardaarmay in uu shaqadiisa si hufan u qabsado waajibaadka baarlamaankana uu ilaaliyo iyo sidoo kale shaqooyinka baarlamaanka ee xilligan hor yaala dhinac uu ka qabto. بسم الله الرحمن الرحيم سيدا عدا أي كجرتو دانتا دينتا دادكا يودالكا مانتا أي تاريخ وطاهي لبي طولونكا بشلي عالم كل نواتنكو وحنو فننا بوحين xubin baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ka banaanaatay oo xildhibaankii geeriyooday Ilaahay u naxariisto Maxamed Afey Maxamuud waxaa bedelkiisa la keenay Deeq Isaaq Aadan oo buuxin doona xubintii uu ka geeriyooday xildhibaan Maxamed Afey Ilaahay u naxariisto xildhibaan insha Allah waxaad maanta ku soo biiraysaa haddii Ilaahay ogolaado daqiiqada kadib golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. kulamadan baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland waayadii dambe ay ku yeelanayeen gudaha magaalada Kismaayo ayaa ah kuwa sare loogu qaadayo shaqooyinka adag ee xilligan hor yaala baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdimajiid Cabaas aadan fantastic radio asal Kismaayo. wasiirka wasaaradda haweenka iyo waliba xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xaniifo Maxamed Ibraahim ayaa iyadoo ka hadlaysay munaasabad lagu weyneynayay maalinta caruurta isla markaana looga hortagayo in la askareeyo waxa ay ka sheegtay in golaha wasiirada ay horgeyn doonto sharciga caruurta isla markaana lagu ilaalinayo xuquuqaadka ay caruurtu ay leeyihiin. maalin wanaagsan waan ku faraxsanahay in maanta munaasabadan aan qayb ka ahaado. runtii hadalkii oo dhanba waxaa soo koobay riwaayadihii iyo heesihii la noo qaaday muhiimaddu ay leedahay in cunuga lagu shaqaysan waqtigiisa waxbarashada la siiyo oo inuu waxbarto oo beeska hore laga soo dhiso. runtii waxaa lagu soo koobay riwaayadii hadda iyo sidii loo jilay. runtii waxyaabaha dhacayo ayay sheegaysaa ama ay soo koobaysaa riwaayaddu taasoo ay tahay in waalidiintu ay mararka qaar ay u arkaan inay caruurtu ay shaqaystaan ay tahay wax lagu dhiirigeliyo si aysan ahayn. cunuga Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu helo noloshiisa caruurnimo, inuu markiisa hore la soo dhiso waxbarto iskuul loo diro iskuulkiisa dhammaysto haddii la awoodo waaye haddii kalena inta uu ka gaarayo almiino shaqada uusan shaqo loo dirin.
ka wasaarad ahaan annaga waxaan ka shaqaynaynaa sharcigii caruurta child right bill-ka oo noo maraayo meeshii ugu dambeysay kaasoon soo marinay habraacii loogu talagalay haddana insha allah aan horgeyn doono golaha wasiirada sidoo kale waxaan wadnaa brogram la dhahaayo hooyo ka warhaay caruurtaada kaasoon ku dhiirigelinayno hooyooyinka inay la socdaan nolosha cunugooda sidaad la socotaan waxaa soo batay in caruurta Soomaaliyeed la geliyo dembi ee iyagu shughul ku lahayn loo diro inay dad dhibaateeyaan naftoodana ay haligaan sidaas darteed ayaan waxaan go'aansanay inaan sameeyno awareness taasoo aan ku dhiirigelinayno in hooyooyinka Soomaaliyeed ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda cunuga haddii hooyadiis ama waalidkiis la socon noloshiisa meeshuu aadayo wuxuu ka shaqeeyo saaxiibadiisa iskuulkiisa waxyaaba uu barto waxaa laga yaabaa in dembiye waaweyn oo naftiisana dib u keenayo dadkana ku dhibaateynayo inuu galo sidaas darteed wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa programkaas aadka u muhiim ah oo aan qabanay phase 1kiisa haddana aan rabno inaan dhammaan gobolada dalka aan ka sameeyno wacyigelintaas sidoo kale waxaan soo wadnaa oo insha allah aan rabnaa dhawaan inuu naga soo dhamaado sharciga xuquuqda caruurta kaasoo runtii caddeyn doono xuquuqda caruurta iyo tixgal sidoo kalena maxaa la protection siin doono ka xadgudubka ku shaqaysiga caruurta waxaan ku faraxsanahay dhammaan wasiiradii ay qusaysay arintan oo aan isku deegaan doorashanahay inay maanta wada fadhiyaan wasiirka nala joogo wasiirka gaashaandhiga oo loo sheegayna dhibaatada ay leedahay unuga qori loo dhiibo waxaan rajaynayaa in aad loogu taxdiri doono askareynta caruurta la fiirin doono da'da unuga runtii dhibkeeda ayay leedahay cunuga in loo dhiibo qori isaga qaadi karin uusan ogeyn dhibaatada iyo maxaa lahay waxyeelada uu qorigaas geysan karo waxaan rajaynayaa sidoo kale I think waa gaarsiinaya waxaan rajaynayaa insha Allah in wadankeena maadaama aan hadda aan nahay aan leenahay rajo aad u wanaagsan aan u ambaqaanay dawladnimo in dhammaan shuruucdaas ay dhaqangali doonaan la ogaan doonana cunug kasta Soomaaliyeed inuu helo noloshii uu xaq u lahaa taasoo siinaysa inuu wax barto taasoo la ogaanayo da'da uu shaqada ku bilaabi karo taasina waxay ahayd wasiirka wasaaradda haweenka waliba xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Xaniifa maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan ka yeeshay xaqiijinta amniga toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya sida warbixinta warkaan uu Muqdisho marka laga soo diray Ibrahim Maxamed Qaasim gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shir gudoomiyaha kulan aan caadi ahayn oo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir kaasi oo looga hadlayay u diyaar garowga xuska maalmaha xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo kulankan oo lagu gorfeenayay sugidda amniga caasimadda iyo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa iyadoo laga soo saaray awaamiir ku socota maamulada degmooyinka gobolka Banaadir si ay shacabkoodu ay u gaarsiiyaan in maalmaha xurriyadda si weyn loo weyneeyo afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Arab oo akhrinayay awaamiirtii ka soo baxday ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir og taliska ciidanka ilaalada deegaanka Xamar og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir og agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir og afayeenka maamulka gobolka Banaadir og xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeedo wargelin iyadoo laga ambaqaadayo shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar kaasi oo goobjoog ka ahaayeen maamulada degmooyinka saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyo maamulka sare ee gobolka Banaadir isla markaana loogu arinsanayay xuska iyo weyneynta maalmaha xurriyadda qarannimada Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Luulyo ee foodo nagu soo hayso si loo weyneeyo maalmahaasi qaran waxaa la farayaa dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo way warqadana sida tooska ugu socoto in guryaha saaran laamiyada la rinjiyeeyo lana naleeyo calamada astaanta qarankana la suro isla markaana cid kasta nadiifiso horteeda gaar ahaan goobaha danta guud oo si gaar ah loo nadiifiyo arrintaani oo qayb weyn ka qaadanaysa weyneynta maalmaha xurriyadda Soomaaliya sida daraadeed waxaan rajaynaynaa in degmo kasta oo ka soo dhalaasha
howsha loo xilsaaray ee ku aadan sare u qaadida bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho lagu abaalmarin doono iyadoona sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu ku dhawaaqay guddi heer gobol oo ka shaqayn doona weyneynta maalmaha xurriyadda Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Luulyo guddigaasi oo kormeero ku sameyn doona dhammaan degmooyinka gobolka banaadir qeybahiisa kala gedisan si loo hubiyo wargelinta ka soo baxday shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar maasanidii kulankan maanta ay yeesheen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli maalmo qor ay ka harsan yihiin maalmaha xurriyadda. Ibraahim Maxamuud Qaasin, Radio TV-ga Asal, Muqdisho. warbixintaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan wararka warbaahinta Asal aad kala socoteen intaynu dib ugu kulmi doono warka kan xiga waa bahda wararka caawa idin leh sida iyo nabadgelyo.